ciidamadii Liyuuga Booliska iyo kuwii qabalayada joogay ee maleeshiyadii baa soo weeraray shacabkii oo halka iska degan bay weerar ku soo qaadeen dhimashadu waa 3 dhaawac baa jira adu waad sabab joogtaa laakiin sababtu maxaa lagu sheegay walaal sababtu wax kala ma aha dadkani way cabanayeen muddo badan bay cabanayeen oo dhibaatooyin badan oo biyo la'aan iyo maaragtay duruuf iyo dhibaato badan baa jirtay xabashadii markaa shirkii aw baraan ku qabanay baan ku soo gabagabaynay codsigii shacabka ayaan madaxweynaha u geynay dabadeed waxba lagama qaban lama dhageysan sababtu saasay ahayd dabadeed shacabku waxay markay iyagu ay ka doodeen bay waxay sameeyeen calankii federaalka ay taageen maxaad u taagteen baa la yidhi markaa maarinta u samaysan dhibaatadu taasay ahayd ma waxaan jirin in aagaas hadda aan sheegayno calankii deegaanka Oromiya laga taagay hadda korna laga taagay oo ay dhaheen annagu waxaan ku darsanaynaa Oromiya deedna ay shalay tageen ciidanka boolisku kadibna ay dhaheen war calankan dejiya markii calanka dejiya leedina dad hubaysan ay qori ku soo bilaabeen saas ma jirto arintaasi may walaal sidaas ma jirto waxa weeyaan Oromiya de waa qoomiyad kale inaguna qoomiyad Soomaaliyeed baan nahay ninna dhalashadiisa ma bedelo qoomiyada kale ma sheegto waxa weeye taasi waxba kama jiraan ummadan laakiin hadda koor waxa loo tahay madaxweynuhu mar oo barra soo booqday in magaalada Lafaciisa laga taagay calanka Oromiya walaal waxaasi waxa weeyaan degmada waxay ahayd sheedar bay ahayd marka cabasho bay saasoo kale u muujinayeen bay ahayd taana waa laakiin madaxweynuhu tagay waa tii laga heshiiyey laakiin cabashadii calanka deegaanka Oromiya maxaa ku xidhay waas walaal deegaan Oromiya de waa qoomiyada kale inaguna qoomiyad baan nahay laakiin dhibaatadu cadaalad darradii hore ilaa imika socota un bay shacabku ka kaceen cadaalad darro inta leeg anagu kuma jirna karno mar haday dilkiiba yimiday dadkii meel ay de markaasi naftoodii iyo ma arkaysaa hantidoodii ku badbaadiyaan ayaa meesha taala maxaa marka xal noqon kara hadda marka wallahi de xalku madaxweynuhu ku xidhan yahay isagu dadkiisa inuu ciidamo u dalbado oo Laayay ila de kolka horeba dadkan caabasho badan oo ma arkaysaa xagga nolol maalmeedkoodiiba de ay maaragtay waxa hanti xoolo cashuur laga qaado mooyaane wax dib loogu celiyaa mar hadayna jirin markii hore ilaa imikana ay socoto dhibaatadii waxa weeyaan markaa dad shacabkii inay federaalka ay yiraahdeen de nabadgelyada iyagu baa nasugi kara dadkan dad nabadgelyo jecel weeye dilka dawladii hore nagumay sameyn jirin xagga cadaadisku xagga dhaqaalaha buu ahaa laakiin dawlad deegaankan imika madaxdan iyo waxay isku dayeen inay dadkiiba ay qori ugu jawaabaan markii su'aal la weydiiyo inay qori kala hor yimaadeen oo Liyuu Booliska adeegsadaan waxaan leenahay xaq darrada hal la joojiyo